بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa fiidiyoga daawashada ah aynu ku eegayno biidni illaahi alkariim habka aad u xisaabsan lahayd meheradda ama xisaabaadkii kale aad u baahnayd aad ku samayn lahayd xagga waxaan sidaynu aragtid waxaad ku aragtaa raqam iyo al-ism iyo al-qiima waan ugu talagalay markaas inaan ku eegno habka bidaacadda kala gedisan aad u xisaabsanaysid adigoo hoosta amar siinaya oo la wixii bariis halka igu xisaabi wixii aan baastay biyo gooniyo xisaabi wixii sonkoran biyo gooniyo xisaabi shaahna gooniyo xisaabi waxaan ku eegnaa markaa functionka si automatic ugu xisaabin lahaa inta adigu kolba aad gacanta ula tegi lahayd saad gacan u tagaystaas aad uga marmi lahayd halkan raqamka waxaanu doonaynaa ku samayno raqam aan isbedelin sababtoo ah haddaan imika ku qorno 1 iyo 2 kadib sidii caadiga ahayd aynu soo jiidno aan idhaahno halkan noo jiin wuu inoo gaarsiiyey ilaa 12 buu inoo gaarsiiyey 12 buu inoo gaarsiiyey kadib waxaabaan nidhiba godka gebigiisaba naga tuur baan nidhi godkaas imika darkiisin 16ka right click baan siinay waxaa noo soo baxday markaa inoo soo baxaya astaantii calaamadii ahayd liiskii la dhahda pop menu baa la dhahdaa pop menu ama af carabi waxay noqonaysaa alqaa'ima almunbathiqa kaas kadib haddii aan ka doorano delete kamika halkaa inoo yaala haddii aan doorano nagu celi gaar aale hada barnaamijka wuxuu laysaga yar jiraa delete baaban siinayba maxaa dhacaya markaan delete siina haddaba waxaad arkaysaa inay ku qoran tahay 3 4 6 oo meesha maxaa ka baxay numberkii 5aad ayaa ka baxay haddaba mushkiladaasi sa aanay noogu dhicin oo ah hab yaroo casriyo aada u macaan oo aan isticmaalna function ka mida functionadan ku jira isku dardarayno dhowr function laba function isku darayno ayaan eegi doonaa insha Allah ta'ala 3 function baan isku darayna insha Allah ta'ala waneegina waxaan leenahay godka horeyntan geyno ayaan equal odhanaynaa equal away kadib waxaan leenahay if baan isticmaalnaa functionka koobaad waa if oo macnaa haddii uu godkan inagu beegan ee halkaa ku yaalla badeecadda lagu qorayo xabadaasi u yahay mid u dhigma madhnaansho calaamadda madhnaanshana saasaad samaynaysa oo ku ogow jawaabtu maxay noqonaysaa waa madhnaansho godkana hay madhnaado godkan tirsiga aan ku qorayo isna laftigiisuna hay madhnaadaad leedahay waay maxaan nidhi maxay imika aan kusoo celino waxaan nidhi godka halkaa inagu yaalla ee inagu beegan ee badeecadda lagu qorayo godkaa koobaad hadduu yahay mid u dhigma madhnaansho oo uu madhan yahay godkan tirsiga laga doonayo inaan ku qorano waxaad leedahay waxaad siisaa isna madhnaansho haddaanu madhnayn haddaba ka waran haddii aanu madhnayn waxaan isticmaalaynaa laba function oo kalean isku daraynaa oo maxay kala yihiin waxay kala yihiin subtotal mid la idhaahdo subtotalkaas ayaanu qoraynaa kadib qawska ayaanu furaynaa markaynu furno liiskaa yaree soo taraaraxay ee iminkaad arkaysaa baa inoo soo baxaya liiskaas waxaan haddii aan isnaahno u sharaxa way fara badan yihiinoo 22 ban ayay gaadhayaan 22 bay gaadhayaan haddaan isnaahno iminka sharaxa ama faahfaahiya waqtina weer qaadanaysaa marka innagu waxaan uga baahanay waa kaa saddexaad ee count a la yidhaahdo count a iyo count number 2ga ah maxay ku kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin midna wuxuu kuu xisaabinayaa uu kuu tirinaya oo kuu soo saaraya wadarta godka ku qoran aad doorataa tiri iyo wadartiisa isoo gaar isugeyntiisa kaas imise xaraf baa ku jira ama imise qoraal ama imise magac ayaa ku qoran halkaas hadladay soo saar ayaad leedahay waa ka saddexaad weeyaan count a wuxuu kuu tirinaya godadka ay ku qoran yihiin xuruuftu ama qoraalku ku yaallo markaa godka tiradiisu soo sheegaya imise god bay wax kugu jiraan ayuu kuu sheegaya
xagga uu number 2 yahayna godkii aad dooratay ama godadkii aad dooratay imise ayuu nambaro igu qoran yihiin baad leedahay sheeg imisana ayuu nambaro igu qoran yihiin baad sheeg baad leedahay marka inaku ka saddexaad baynu dooranaynaa ee code ee ah labanu ku dooran karaynaa inaan isaga ku dhufan saddex baan ku dooran karaa inaan isaga ku dhufano ama count ee aan qorno ama inaan number 3 sida iminka saas oo kale aan sameynay aanu doorano aanu qorno kadib waxaad furaysaa ama qoraysaa calaamadii quotationkii markaan furno calaamadan sameynay waxaad leedahay haddaba iminka waxaana laga doonayaa godkii la doonayay tiradiisa ama wixii ku qoran tirooyinkiisa in aanu soo saarno godkaasi waa kee waa kaas halkaa ka soo bilow ilaa halkaas ma sameynay calaamadda qowska inoo xidh qowska iminkaad xidhina waa qowskii subtotalka laakiin kii if weli maad xidhin kadib markaad iminka qowskaa kale xidhin qowskaa kale calaamadiisu madow tahay wuxuu isagu kuu sheegay inuu xidhay qowskii kale ee maxay la socday efta la socday enter c saas ayaan leenahay iminka waad ku guulaysatay bal ku qor halkan wuxuun ku qor una fiirso waxa soo baxaya number baa soo baxay ka kale ku qor u fiirso waxa soo baxay haddana muxuu soo saaray tirada godadka ay wax kugu qoran yihiin tiradooda ayuu kuu soo saaray wuxuu yidhi iminka ku leeyahay 3 god ayay wax kugu qoran yihiin waayahay haddii iminka aanu jiidno aan idhaahno ilaa halkaa inoo gaadhsii waxaad arkaysaa inuu inoo soo saaray tii hore jawaabtii hore uu inoo soo saaray maxaa mushkilad jira mushkiladda jirta waxa weeyaan laba jeer inagu dhufo godkaas si aan u hagaajino mucaadaladii ama functionkii u hagaajino godka halkaa inoo yaala haddaad arkaysid intaad ku dhex dhufatid xabadda d 12 ay tahay d-da iyo 12ka dhexdooda ku dhufo dabeetana keyboardka waxaad kaga dhufataa amaad ka doorataa badhinka la yidhaahdo f4 marka dooratid calaamadaas ayaa kuu soo baxaysa dollar kadib xarfu d kadib dollar calaamadii dollarka kadib 12 ayaa kuu soo baxaya enter inoo sii enter markaad inoo siisid waxaad arkaysaa halkanna waxaad inooga bedelaysaa aad leedahay godka halkaa godkaas inoo bedel oo waxaad leedahay waxaad iga dhigtaa d 12 sideeda d 12 kaas iyana d 12 iga dhig d 12 godka laftigiisa d 12 ilaa d 12 iga dhig kadib wuxuu kuu soo saarayaa oo kuu sheegayaa godka keliya ee d 12 inta kugu qoran ayuu kuu sheegayaa kadib waxaad samaysaa iminka cidhifka yaraa inooga jiid oo ilaa halka ugu dambaysiisa inoo gaadhsii ee aan ugu talagalnay markaa imika waxaad arkaysaa inay ku qoran tahay 1 2 3 haddii halkan aan ku qorno xuruuf kale ama magac kale waxaad arkaysaa godkii ku beegnaa inay tiradii sii socoto ay noo soo saarayso 5 4 5 6 7 kolba wixii godadka si inagu qoran yihiin waay haddii aanu sameyno number 3 gaas oo kale aan ku dhufano aan idhaahno number 3 ga ama kaas saddexaad gebigiisaba inaga tuur sheekhow kaas saddexaad excelow inaga tuur baan nidhi waanu tuurnay maxaa soo baxay haddana waxaad arkaysaa nambaradii inay sidoodii isugu xigaan baad arkaysaa control iyo z taabo si uu marka haddana inoogu soo noqdo godkii markii hore aan tuurnay kadib waxaad arkaysaa haddana automatic in iyadoo xubahashii ay ishagaajisay haddana nambarkii shanaad ay noogu soo dartay waay kadtaasi waxay ahayd habkaanu ku samaynayno ama aanu ku eegayno aan ku habaynayno tirsiga si aanan faraha ula tegin waay halkan maanta waxaan leenahay sheekhow waxaan iibinay al arus bariis baan iibinay الأرز بريسكي ويان waxaan leenahay godka labaad almaccarona oo baastadii ah
الشاي بان iibinay oo shaahiya waxaan iibinay kale aan oran karnaa waxaan sii iibinay الشاي laftigeeda inagu soo dhowr jeer inagu soo celi الشاي cirifka qabo taxan dul saartin cirifka qabo si markaas siisa kugu soo koobi gareeyo xagana waxaad ku leedahay الأرز بن hadana iibiyay المعكرونة iibiyay hoostana waxaad leedahay waxaan ku iibiyay السكر بن iibiyay waxaan iibiyay kala leedahay المعكرونة waxaad ku leedahay waxaan iibiyay الشاي بن iibiyay الأرز بن iibiyay intaasaad ku sheegaysaa aad leedahay mid walba sidiisa ama sidiisa goonida ah ayaan u iibiyay kadib waxaan ku qoraynaa haddana qiimaha mid walba aan siinay ayaanu ku eegaynaa tirsigana sida u aragtid tirsiga ama raqamkii numberskii sidaan ugu talagalnay ayuu ku socdaa sida idinka arkaysidba waxaan eegaynaa haddaba qiimaha tii koobaad waxaanu siinay $100 waxaanu siinay kii labaadna $500 baan si ka haynaa $330 $20 $25 waxaan ka haynaa $26 $90 $150 $220 $330 waxaanu ka haynaa shaahi $50 aynu ka haynaa bariiskii waxaanu ka haynaa $500 waxaanu doonaynaa haddaba halkan hoose inuu mid walba sidiisa goonida inugu xisaabiyo wixii beriisa gooni inugu xisaabiyo wixii mackarona gooni inugu xisaabiyo ayaanu doonaynaa waay maxaan isticmaalaynaa waxaan isticmaalaynaa haddaba iminka godka la yidhaahdo ama faction laba faction oo kale ayaanu isticmaalaynaa labada faction waxaa la yidhaahdaa mid ft weeyaan oo sidii hore oo kale ayaanu isticmaalaynaa waxaan leenahay markaas u fiirso calaamadiisa wadan leenahay isugeyn if iyo isla socon samaynaynaa sum if taasaanu dooranay kadib waxaanu furaynaa qowskii markaanu furnay ayaad sheegaysaa godka aad doonaysid inaad wax ka eegtid waxaad leedahay godka halkaa ii yaala ayaad ii eegaysaa godkaas ayaad ii eegaysaa baad leedahay weliba si aanu isu bedelin d-da si aanu isu bedelin d 12 kadibna calaamadda f4 inaa taabo godkaasaad leedahay ii eg waaye ma kuu eegay kadib waxaad leedahay criteria ama maxaad doonaysaa in la eego godkanaad leedahay ii eg godkana waa maxay waa godkii ay wixii aad doonaysay ama alaabtii aad doonaysay inuu kuu tootolgareeyo magaceeda halkuu ku jiro kadib waxaad leedahay calaamadda intaad furtid baad leedahay godkeebaa laysu geynayaa haddaba godka halkaa ku yaala godkaa saddexaad ee nambaradu ku yaalaan ii eego isugee wixii waafaqsan nooca ama alaabta anigu aan doortay waay kadib waxaad samaynaysaa qowska ayaad inoo xidhaysaa qowskii halkii inoo yaalay ayaad inoo xidhaysaa qowskaas kadib markaad xidhin waxa aynu samaynaynaa markaas inaan calaamadda intan siino calaamadda intaan markaan siino kadib waxaad ku arki doontaa insha allahu tacaala haddii ay sax tahay factionkaagaasi hadduu sax yahay inuu sidii aad u baahnayd ama sidii aad doonaysay aad tiri iigu samee in uu kugu xisaabiyo beriiska oo keliya uu kugu xisaabiyo calaamadda intan baan siinay waan eegaynaa haddaba in uu imika markaas saan doonayna xisaa xisaabiyeyn kale waa $960 halka bal isugee beriiska koobad oo $100 waxaad u geysaa kii labaad oo $500 $90 xagay naga soo galeenee kale al-arus waa $100 halkaasa aruskan labaad oo 90
kii saddexaad oo 500 mise isku noqdeen 690 bay isku noqdeen waayahay haddaba waxaad samaysaa inoo jiido ka saddexda ama qaybaha kale inoo gee macaroni wuxuu yidhi $300 baan ku hayaa balaneegno macaroni $300 waa kuweytano macaroni koobaad waa $500 waa 300 halkaga timid ka talabaadna waxay 150 saddexaadna 300 marka khalad ba halkaa ku jira inagu dhufo baleeg markaan eegno maxaan leenahay eegayna waxaan arkaynaa inuu ka tegey qaybtii buu ka tegey qaybtii koobaad buu ka tegey aanu ku noqono markaa mar labaad aanu ku noqono functionkii horaan ku noqonaynaa si aanu inagu bedelin ka horaan ku noqonaynaa waxaan leenahay ku noqo laba jeer inagu dhufo kadib calaamadaas idaas iyo 12ka waxaan dhex dhigaynaa efar baan taabanaynaa enter baan siinaynaa kadib markaan enter siino ayaanu ku soo jiidaynaa sideenii yarayd oo kale aad leedahay functionka gaarsii ama mucaadaladaas gaarsii qaybaha kale soo jiid wuxuu yidhi $683 balaneegno macaroni baastada wata koobad waa 500 loogay 150 waa 650 650 ugee $30 waa $30 waa sidee tahay weeyaan sonkortii waa $220 saas oo kale ku noqonaysaa marka functionkan isticmaalay muxuu ahaa waxaan isticmaalnay sum f ayaan isticmaalnay oo inako markaa doonayna wixii alaabtii halkaa inoo yaalay in aanu maxay ahaytoy aan si gooniya inoogu jamciyo ama alaabtan u baahnayn oo keliya uu inoo soo saaro jamcigeedii mid walba totalkeedii iyada tu kale iyada jirta laftigeeda aad ku jamcin karaysid ama aad ku eegan karaysid alaabtaada noocaad doonaysay waxa ay tahay ama waxaan leenahay alaabtaad doonaysay gooni aad leedahay igu xisaabi marka horeysa raqam ka soo bilow ilaa alqiima gaarsii kadib waxaad tagtaa data tag ama bayaanaad dadka carabiga isticmaala bayaanaad baad tegaysaa data validation ayaad tegaysaa kadib waxaad ka dooranaysaa data validation ta koobaad ka dooranaysaa sanduuqaas ama boxkaas iminka kuu soo baxaya insha allahu tacaala ayaad kasii dooranaysaa haddana allow any value xagga ku qoran tahay inoo bedel oo waxaad ka dhigtaa khalad yar baa dhacay waxaan leenahay filter baad tegaysaa filter baad tegaysaa filter inagu dhufo kadib waxaad arkaysaa inuu god walba uu kuu sameeyey god walba waxaad ku aragtaa inuu kuu sameeyey maxay qiimo gooniya ama calaamad yaroo gooniya ayuu kuu saaray markaad calaamaddaa ku dhufatid waxaad arkaysaa liis yar oo soo taraaraxaya oo ay ku qoran tahay alaabaha ama waxyaalaha kuugu jira godkaaga kuugu jira ayaa ku soo baxaya marka taasna godadkaa waxaa kuugu qoran ayaa kuu soo baxay marka insha allahu tacaala taasna waxaan ku eegaynaa video gaar ah ayaan iyana ku eegaynaa waxay leedahay sharaxdeeda goonida ayay leedahay wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu